waxaan ugu baaqayaa in deergaradka Soomaalida culimada diinka odayaasha dhaqanka ururada bulshada dhammaan ganacsatada dhalinyarada hooyooyinka dadka Soomaaliyeed oo dhan waxaan ugu baaqayaa in ay kacaan ka gilgishaan waxyaabaha xun ee socda oo ay kow ka tahay ku xadgudubka lagu xadgudbayo ciidamada qaranka ay laba ka tahay dagaalkan aan macnaha lahayn iyo isdilka aan macnaha ku fadhinin ee dadka Soomaaliyeed isku hayaan si looga hor iman lahaa sidii waxa loo qaboojin lahaa sidii meel looga soo wada jeesan lahaa sidii aan loogu kala safteen in arintaas loo istaagaan ugu baaqaya meel kasto joogaan hadday kuwa kaliilka isku dagaalamay yihiin hadday yihiin kuwa qoy isku dagaalamaya hadday yihiin kuwa gobolada dhexe isku dilaya iyo hadday yihiin meel kasta kuwa shabeelaha ee hoose isku dilaya kuwa isku dilaya maxaan ku dhahaa bakool dhinac walba ay tahay shabeelada dhexe intaba waxaan ugu baaqayaa meel kasto joogaan dadka Soomaaliyeed ee dhergaradka inay u kacaan sidii arintaas loo qaboojin lahaa loogana gudbi lahaa dadkana ay u walaaloobi lahaayeen oo gacmaha isu qabsan lahaayeen mar kale waxaan u soo jeedin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee social media isticmaala waan ognahay in social media uu hadda uu noqday in fara badan oo kamid ah inuu source yani wax ka soo galaan dadka u yahay iska shaqaysta laakiin wax kale oo aan qabyaalada ahayn oo aan isku dirka dadka ahayn kaga shaqaysta oo fiican oo loo xiisaa jira wax kale oo fan dadka Soomaaliyeed ayaa jira waxaas aada waxa xun aadka u xun ee nabiga kaleey salaatu salaam ku tilmaamay dacuuha fa innaha muntina aad bay u uraysaa iskaga taga waxa qarmuunka badan ha kaga shaqaysanina ka waantooba ayaan soo jeedinayaa ayagan u soo jeedinayaa